waxaana wanaagsan dadkaan daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. barnaamijkan kooban daawadayaal ayaa waxa aanu kaga hadli doonaa iyadoo mar kale uu isu soo taagay jagada madaxtinimo ee wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle kadib markii xisbigiisa RPP la yiraahdo ay dhawaan shir ama kulan ballaaran oo isugu yimaadeen ay ku dhawaaqeen in uu u tartamayo mar kale Ismaaciil Cumar Gelle saameynta wadanka Djibouti oo markii shanaad qiyaastii ah in Ismaaciil uu madaxweyne ka noqdo ayaynu eegi doonaa waxa kale oo aynu eegi doonaa qowmiyadaha kala duwan ee Djibouti xiriirkii ka dhaxeeyay Anfarta iyo Soomaalida qarnigii 16aad xilligii gumaysigii Faransiiska iyadoo hore loo oran jiray Anfar iyo Soomaali oo haatan magacaasi dib loo ilaabay waxa kale oo aynu eegi doonaa magacyadii la oran jiray xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska iyo mar kale oo lagu yeeri jiray deegaanka Faransiiska ee Anfarta iyo Ciisa arrimahaasi oo dhan goorma ayay Anfarta iyo Soomaalidu si kala durkeen sidee markii hore xiriirka ahaan jireen qodobadaasi ayaynu ku eegi doonaa khadka Skype-ga ayaa waxaan kula xiriiray Professor Hussein Sheikh Anilad Hussein Ibrahim oo jooga magaalada Paris ee wadanka Faransiiska marka hore si fiican may maqashaa Professor Hussein waad mahadsantahay assalaamu calaykum cali xarare si fiican baan ku maqlaa huuno waad mahadsantahay ku soo dhawow mar kale Somali American TV marxaba marka uu warsan ku weydiiyo Professor Hussein sidee u aragtaa in Ismaaciil Cumar Gelle uu mar kale haddana ama markii shanaad uu isu soo taago inuu u tartamo jagada madaxtinimada ee wadanka Djibouti wallahi waa su'aal fiican weeyino Ismaaciil Cumar Gelle wuxuu noqday ismooga qalkiibay googleysaa waa nin baan isku sheegaya maanta reer Djibouti oo idil baa ka soo horjeeda mandaagii shanaad buu doonayaa waa nin jiifa waa nin iska hurda xanuunka hurdada yani iska qabatay meel kaste waa la tirtiriyaa wuxuu noqday Bouteflika madaxweynihii Algeria haysanay kursigii aan lagu riixay unbaa yani iska maqan marka maxaa la yiraahdaa meeshana dee shacabweynaha Djibouti wuxuu u hayo ma jirto koongareegii uu waxeeyay waxa la wuxuu ka sheekeeyo saacad waayay wuxuu ka hadlay naagaha dhibaatadooda dalistooda wuxuu noqday doctor buu noqday gynecolog buu noqday wuxuu yiri naaguhu bil kasta dhakhtarka ha tagaan ha iseegaan waxyaabo ceeba waxyaabo shaqadiisa ahayn waxyaabo competence-kiisa xaguu ka yiri ma shirka xisbiga ha waa taa laga yaabay secretary generalkiisina ku isaguna maxaa la yiraahdaa ka yimiday Dirdaba Ilyas Dawaale intuu shacabweynaha Djibouti oran lahaa waxa baan inii hayaa sheekadiisii baa noqotay inuu faaniyo khadraxayd marwo khadraxayd marka dadkii baa yaabay Professor Hussein yaa la tartamaya Ismaaciil Cumar Gelle yaa la tartamaya isaga isla tartamaya marka haddii aan cilmi la tartamayso macnaheedu maaha waa madaxweyne la jecel yahay oo la doonayo bay waa dictator weyn weeyin magaalada wuxuu ku haystaa maxaa loola tartami waayay waxa loola tartami waayay de vote kastuu soo dhigto waa vote iska xada weyn waa vote yani ku haysto xoog weyn saxaaradaha idil baa la beddelaya marka waa shaqo aad lagu yaqaano Afrikada sidaad u taqaanid qof kasta madaxweyne kasta lala soo dhigto vote oo vote ka hela ya lama arkin Djibouti Allah u naxariistay aadan Rooble Cawaale wuxuu yiri RPP-da buuri shiinaha idil handuu iskala tartamo shiinaha idil bay yani ka badin kartaa buuri waa mahmaah yani cajiiba waa mahmaah de maxaa la yiraahdaa iska socota wali macaaridkiina way ka daaleen macaaridkii waxay yaqaaniin handay iskala tartamaan inuu yani ka xadi doono lawna ciidankii buu haystaa booliskii buu haystaa jandaarankii buu haystaa ilmaadaradii baa wala xukuma meel kaste afduub ayuu yani ku haystaa marka wuxuu soo baxu waayay stadiumkii la wuxuu keenay dad buu keenay meeshii ummadii gaajo iyo haraad baa yani ku dishay ciyaaladii baa laga soo saaray iskoolada kuwii oo ooya marka maanta Djibouti hadda adeegtid
dadkii koraan ma haystaan biyo ma haystaan dad masterro haysta shoomeerin bay yihiin gaajaa wala dishay marka shaqana ma jirto waddankeenu maaliyad badan buu haystaa intaayoo basis militaria yaalla maraykan baa jooga faransiis baa jooga lacag baa buuxda waxaasoo idil wuu wala afduubay wuu qaatay professor xuseen waxaan rabaa qodob dhinaca taariikhda inaan dib ugu yar noqono oo aan yar badhaamino ilaa qarnigii 16aad baynu kasoo bilaabaynaa ilaa xilligii faransiisku uu waddanka haystay canfarta iyo soomaalidu aad bay isugu wanaagsanaayeen way isgarab socdeen dad walaala bay ahaayeen xataa waxay la dagaalami jireen Ethiopia iyagoo wada socda bal in yar waxaad iga faallootaa xiriirkii hore ee canfarta iyo soomaalidu si isku ahaan jireen berigii hore xilligii gumaysiga canfarta iyo soomaalidu waxay ahaanaysay walaalo isku degmo waa dad maxaa la yiraahdaa dagaal yani ku qaadi jiray Ethiopia waa dad isla noolaa marka maxaa la yiraahdaa ilaa maanta taariikhiyan saacadda la eego waxay iskala noolaanayeen daaroodka waxay iskala noolaanayeen qolaa la yiraahdo warsangalis marka ilaa maanta qabaarihii daaroodka la helaa magaalada ubuk cafartu waxay deganaan jirtay ilaa zaylac waxay iskala noolaanayeen gadabursiga isaaqa daaroodka saawdkana waxa la iskala noolaa ciisaha marka gumaysiga xilliguu yimiday ayay dhibaatadan oo idil iska timiday la-una gumaysigii dadkan buu isku wala diray dadkan buu isku laaqay dadkan buu isku gashay afka marka magaalada Djibouti marka ugu horeysa saacaduu abuuray horta waddanka cafareed buu yimiday ubuk buu iska yimiday ubuk xilliguu joogay cafartiiba yani ka farxisay ubuk magaalada Djibouti buu yimiday magaalada Djibouti buu dhisay magaalada Djibouti xilliguu dhisay wuxuu ku dhisay gadabursi wuxuu ku dhisay isaaq wuxuu ku dhisay daarood dadkaasoo idil baa iswala haystay cafartiyo ciisihiina way joogeen marka wuxuu la wala saxeexday waraaqado dadkaas ayka kuwiyo u jooga meelaha yani 1945kii ninka ugu horeeya oo Soomaaliya oo Faransiiska loo diro wuxuu noqday nin gadabursiya jaamac zaylici baa la yiraahdaa ninka gadabursiga xilliga meeshana loo diray si uu noqdo senator ciisihii baa cadhooday gadabursigii baa lagu qaaday dagaal idil 100 qof baa laga dilay markaa buu fikiray wuxuu yiri Soomaalidu waa inaan iska kala saaraa dhibaatadu maalintaaba iska timiday wuu fikiray wuxuu ku shaqaystay rag waddanka u dhalan waddanka lagu beeray shisheeye ninka Xasan Guleeda la yiraahdo ayaa la soo qabtay ninka buu ku shaqaystay lawna Maxamuud Xarbi Soomaalinimada Soomaali weyn buu iska taageernaa Maxamuud Xarbi wuu ka diiday laaqlaaqa iyo isku dirka Soomaalida la kala jabinayo Xasan Guleed baa ogolaaday dhibaatada baa keentay ina Djibouti la yiraahdo maxaa la yiraahdaa territoireka Faransiiska cafarta iyo ciisaha dadkii walaalaha ahaa buu isku diray dagaalka ciisaha iyo gadabursiga xilliguu dhacay ayuu u kala saaray Soomaalida gadabursi isaaq iyo daarood ciisihiina wuxuu hadeed ka dhigay dad ahayn Soomaali oo ilaa heer buu gaaray TV-ga iyo raadiyoga yani gumaysiga haddaad eegtid wuxuu yiri maanta waxaan abuurayaa af ciisaan abuurayaa buu yiri Soomaalidii buu yiri dadkii waddanka maaha buuqa buu soo gashay dadka isku dirka iyo dhibaatada waxa noogu wacan gumaysigiina imika xilligu naga tagay Xasan Guleed iyo inaadeerkii Ismaaciil Cumar Geyle marka cafarta Soomaalidu si fiican bay isku jeclaayeen cafarta iyo ummadda kale si fiican bay isku jeclaayeen laaqlaaqa waxa noo keenay gumaysigii hoostiisa dadkaba noo keenay Xasan Guleed iyo Ismaaciil Cumar Geyle waaya imika maxaa la idinku yeedhaa canfar iyo Soomaali canfar iyo ciise canfar maxaa magacyo wadataan hadda imika dadkii waxa loo kala saaray afar iyo ciise Soomaalidii waa la masaxay gumaysigan marka ugu horeysay Allah u naxariistay Jaalle Siyaad Barre Soomaali weynta xilliguu doonayay inuu sameeyo gaalka ba yani ka hor yimiday magaca waddankii buu bedilay lawna waxay ahayd Code Française de Somalie si uu Jaalle Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay Djibouti u qaadan magacii buu iska bedilay
markaa buu soo dulbaxay gadabuursigii iyo isaaqii wuxuu yidhi dadkan reer jabuuti maaha ciisihii buu awoodda iska dul dhigtay ciisihii buu yidhi haddeed waa inaad ii shaqaysiin xasan guleed buu ka yidhi waxaad tahay shisheeye baraxaad yacni ka timiday wax kastaan yacni kuu qabanaye af soomaaliga iska masax soomaalinimada iska masaxa waxaad tihiin ciise marka meeshii waxay noqotay cafar iyo ciise bandiiraddana saacadda la qaatay guumaysigii shaqaduu ku shaqaysanayey ayay ragga xasan guleed iyo ismaaciil cumar iskaga shaqeeyeen faransiisku wuxuu jeclaa inuu magaca soomaalinimada ka masaxo jamhuuriyadda jabuuti shaqada nus buu waxeeyey nuskii kaleeta waxa sameeyey xasan guleed iyo ismaaciil cumar geelle maanta ragga abtiyaashaya naaskooga aa nuugay oo ciisaha ah iskuma wahaystaan soomaali gadabuursiyo isaaqna looma haysto rag yacni soomaaliya waxay noqdeen dowlad ismaaciil cumar geellaa waalay maantana heer baa la socdaa inuu ciisihii toogto waday qofuu u roo yahay professor xuseen adigu waxaad ka soo jeedaa dhinaca canfarta haddaan ku weydiiyo dadaalkii xornimada ee waddanka jabuuti lagu xoreynayay canfartu dadaal intee leeg baad yacni kaalin intee leeg baad ku lahaydeen canfartu iyooyinka maxaa la yidhahdaa calanka dagaal weyn u sameeyey allahu naxariistee axmed diini axmed isagaa calanka keenay bandiiradda isagaa keenay canfartu dagaal weyn bay u gashay waxaa jirtay MPL Mouvement Populaire pour la Libération baa la yidhaahdaa ragga jabhadii dil bay waxeeyeen beriga Ethiopia waxaaba yacni la qabatay macalasaf taariikhdu jaalle siyaad barre ayaa maxaa la yidhahdaa naga galay aaqilo markii canfarta hadduu iskala qabto way ficnaan lahayd xurriyadda waa la qaadan lahaa dadkan buu mooday ummad yacni fiican maantana dee waa ka waddankii yacni ka dhintay ismaaciil cumar geelle wuxuu ka tirsan yahay kuwa iska burburinaya soomaaliya soomaalidiina isku diray cafarta iyo soomaalidiina yacni isku diray marka cafartu waa dad heedha soo halgantay caalanka jamhuuriyadda jabuuti bandiiradda intay qaadatay ilaa joogadeena cafarta waddanka boqolkiiba 90 haysata boqolkiiba 90 haysata maalin kastaa la dilaa maalin kastaa la kubsadaa maalin kastaa laga qaadaa xoolahooga maalin kastaa dhibaato idil lagu hayaa marka maxaa la yidhaahdaa dadkii soomaalidiina wuu ku diray dadka cafarta waa dad soomaali iska jecel xitaa cafarta dhexdooda maanta qolooyin badan oo soomaaliya nugu jirta gadabuursi noqotaa daarood noqotaa isaaq noqotaa oo cafar noqotay lowna taariikhiyan xilligay xabashiga la dagaaltamayeen qolooyin badan oo soomaaliya xilliga laga adkaaday waxay tegeen awsa axmed gura ninka la yidhaahdo hoostiisay yani iska tegeen marka maanta cafartoo idin way ka xun tahay burburka soomaalida ismaaciil cumar wuu ku faraxsan yahay maanta allahu naxariistay jaalle siyaad barre hadduu nool yahay dhibaatada cafartu ay ku jirto dhibaatada heer jabuuti ay ku jiraan maan yani jireen professor xuseen hadda ka hor waxaad ii sheegtay in aad dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dacwaddaasi oo ka dhana jabuuti waxaad sheegtay in dad fara badan la xasuuqay dacwaddaana aad gudbisay marka ugu horreysaan ku weydiiyo dadka la xasuuqay ee aad sheegto 1991 maxay ahaayeen dadka la xasuuqay waxay ahaayeen gadabuursi waa gadabuursigu waa dadka jabuuti xilliga la asaasay gaalku waraaqad uu iskala saxeexay waa dad waddanka u dhashay waa dad waddanka ku dhashay waa dad maxaa la yidhahdaa jamhuuriyadda jabuuti u soo halgamay ninkii ugu horreeyey uu maxaa la yidhahdaa gaalku oqoonsanaaday oo maxaa la yidhahdaa waddankeenna Paris yani lagu yiqiinay magaciisu waxay ahayd jaamac cali muuse jaamac zaylici ninkaasoo waxaasoo idil waxeeyey maanta taariikhdii baa la doonayaa ina gadabuursi laga masaxo wax alla waxay waxeeyeen miskiidka ugu horeysa oo jabuuti ninka abuuray waxay ahayd xaaji diide taariikhiyan buugyaasho idil bay yani ku taallaa ninka ugu horeysa oo jabuuti maxaa la yidhahdaa afhayeenkiisa noqday waxay ahayd jaamac zaylici ninka ragga ugu horeeyo maxaa la yidhahdaa sanad guuraaga jabuuti u dagaaltamay waxay ahayd hoshimiin
tamajoorka idilo FL6 la sheego jabhadda FL6 boqolkiiba 99 gadabuursi bay ahayd marka ummadda waddanka u soo dagaaltamay wax kasta u soo sameeyey maanta waxaa laga dhigay étranger 1991kiina qarax yar baa dhacay qarax yar saacaduu dhacay kuwiyoonan u fiirsan ayay ku boodeen qoladii gadabuursigoo idil baa lasoo wala qabtay laguna dhibaatadaana waxa keenay 1990kii waddankeena Soomaaliya daweyn xilligay iska burburtay qoladan mamaasanka la yiraahdo nooga yimid Gaarisa iyo Dirdaba waddankeena maanta burburkiisa ugu wacan waddankeena baabi'inaya Soomaalida isku diray dhibaatada lagu haya waxay doonayeen inay maxaa la yiraahdaa Somaliland nus yani ka qaataan gadabuursigii baa la galay dagaal way diideen waddankooga in xoog lagu qaato sidii kalaf maalintii kalaf cafartu ay askartiisa u soo karbaashto arxiba ugu noqday ayuu maxaa la yiraahdaa meesha yani boorami saacada lagu karbaashay caro iyo ciilkii ay qaadeen mamaasanku waxay ugu soo noqdeen dadka masaakiinta aqaladooda jooga shicib weyne ah macallimaad ah commerçant ah waa la soo wala qabtay xeradii jaadaarka la geeyay in xasbigii bay ku dhimatay lawna xasbiga loogu talagalay 10 qof ayaa laga buuxiyay 100 qof meeshii bay ku dhinteen naago badan baa la dilay naago badan baa la kubsaday ciyaal baa la laayay dadkii way baxsadeen arxibay yani ku baxsadeen tujorey ku baxsadeen cafartii baa maxaa la yiraahdaa ummadii soo gaargaartay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa walaalkii luuxuriyo adna soo qoyso 3 bilood kadib cafartii baa lagu bilaabay cafartii buu baabiyay waxa laakiin cajiiba xumaanta dadkan taliska maanta haysta mamaasanka la yiraahdo dadka ay sida u laayeen xilliga adeegtid Xasan Guleed hooyadii gadabuursi weeyin Ismaaciil Cumar hooyadii gadabuursi weeyin Mahdi Sheekh Nika Jaadaarka haysta abtiyaashi sida u dilay gadabuursi weeyin taliska idiloo Djibouti haysta mamaasankan hooyooyinkood gadabuursi weeyin anigu abtigay maalinta la xiray General Yaasiin Yaabe waxaan ahaa ninkii ugu horeeyay xasbiga ugu tagay ilaa intay naftu ka baxaso waan dul joogi jiray dacwadiisaan u sameyn jiray abtigu waa qof naaskiisa aan nugay maande laakiin kuwan waa kuwa abtiyaashood dila waa kuwa ajaanibka iska dila maalintii horeta idil farmaajo baan yani iskala sheekeysanayo idil farmaajo waxaan iskala arkay inay maanta Soomaaliya waddanka Soomaaliya wuxuu u kacayn waa dhibaatada uu ku hayo Ismaaciil Cumar Geelle maanta de jaalasiyaad bareeyo yaasiyan hadday joogaan u sameeyeen waxaas Professor Hussein aan ku weydiiyo inagoo gabagabadii barnaamijka marayno waxaan doonayaa aan ku weydiiyo dadka aad u doodaysay aad leedahay waa la xasuuqay maxkamad baan geeyay dacwad iyadoo dad aad magac dhowday aad tiri waa la laayay dadka aad ku sheegtay inay ahaayeen dad gadabuursi oo la laayay maxay iyagu u hadli waayeen oo ay arrintaasi u cambaaran waayeen oo ay u dhaleecin waayeen oo adigu aad dacwadda u qaadood kaliya halka u geysay waa maxay sababta waxa keenay dad badan oo Djibouti lagu dilay waddankii way ka wala baxsadeen waa dad waxay qaadeen shock bay qaadeen traumatism bay qaadeen markii ugu horeysa guumeysiga laayay markii labaadna dawladda Djibouti baa laysay waa dad yani alaabo badan baa la qorqoray dacwadda marka ugu horeysa inta caalamka la geey Djibouti baa la geeyaa maxkamadda Djibouti dacwadday iska wala dhigaan waa la wala diiday rag badan baa dacwadaha waxeeyay xasan cabdi aadan baa isaguna kulan wuxuu qoray site idil magacdaasoo idil dhibaatadu caykay u dhacday marka ummadii baa de iska wala cabsoonaysa anigu waxaan ahay ninka shicibweynaha Djibouti qoladay dooni ha noqoto abtiyaashay ha noqoto ciisaha cafar ha noqoto gadabuursi ha noqoto waxaan iska jeclaaday inaan dacwadda afayeenkooga u noqdo lawna anigu Faransiis baan ahay waddan baan joogaa dimuqraasi ay jirto waddan baan joogaa ikhtiyaar uu iska jiro xitaa cafartii idleedoo waddanka 90% haysata may ashkatoon waxa waa maxay weeyin waa dhibaatada iyo sileeca iyo buuqa uu dadka ku hayo dadkii waxay wala qaadeen shock talabaadna dadku waxay u baahan tahay inay maxaa la yiraahdaa isbihiyaan waaya ugu dambeyntii aan ku weydiiyay Professor Hussein haddii aad tihiin reer Djibouti idinkoo isku dhanba cidda doonaysaan ba ahaadee xagee u socotaan mustaqbalka maxaad leedahay Djibouti
wallahi mustaqbalka anagu waxaan iska jecelahay inaan ikhtiyaarkeennii helno waxaan jecelahay inuu waddankeenu noo hagaago waxaan jecelahay inuu waddankeenu gaajada ka baxo waxaan jecelahay inuu shicib weynaheenu maraakiibta qaadanoy iska baxsadaan maanta turkishkay iska wali joogaan in badan baa doonaysa inay badda isku tuurto in badan baa maanta maraykanka joogta waraaqadihii xilliga loo diiday inama badanoo 20 jira ayaa la tusay inay maxaa la yidhahdaa dhaxantaa weynaad aragtay barafka dhex maraan report baa laga sameeyey telefisonka yacni canada laga tusay marka ummadeennu shicibweynuhu dhibaato weyn baa na haysata waddanadii aan lagu baxsan lahaana wuu burburiyey maanta waddanka annaga noo dhow taariikhiyan walaaltinimo si kaste waa soomaaliya weyn soomaaliyadii aan lagu baxsan lahaana wuu naga burburiyey meel kastuu naga burburiyey ninkan waa nin la dagaaltamaya soomaalinimada waa nin la dagaaltamaya muslimnimada waa nin cadow ah horna africa dhibaatada ugu weyn waa ninka yacni ku haya marka waxaan ku ducaysanay inuu ninkaa naga tago la-una wuu isku keen wala diray wuu isku keen laaqay ani abtiyaashay oo idin buu haaqay dadka furlabaha la yidhaahdo pilotkiina waa kaa dee wuxuu iskaga hayaa xasbiga ka alla kii madaxa sare u qaada wuu tooganayaa ninka nin abti yaqaana maaha nin adeer yaqaana maaha nin wax yaqaana maaha waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay professor xuseen ibraahim oo khadka skype-ka aan kula xidhiiray isagoo jooga magaalada Paris ee waddanka Faransiiska xuseen aad baad u mahadsan tahay marxaba assalaamu calaykum عليكم السلام داوديال intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi koobnaa ee aan khadka skype-ka kula xiriiray professor xuseen ibraahim oo jooga magaalada Paris isagoo jaamacadaha waddanka Faransiiska qaar kamida macalinka ama wax ka dhiga waxaan ka wareysanayay iyadoo dhawaan xisbiga RPP ee talada waddanka Djibouti haya in ay mar shanaad u doorteen in Ismaaciil Cumar Geelle uu noqdo madaxweynaha waddanka Djibouti iyo waliba xaaladda guud ee waddanka Djibouti tan iyo kulankeena dambe intaan barnaamijkan oo kala dib u kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgeliyo